السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو وهذا صاحب بيال عاوي بديدي ودنبي يقضى بدو وحي ساعة بدن iyo programkeena oo aan rabay inaan ku soo qaato waa arrin faraha ka baxday muddadii hadda la soo dhaafay ama asbuuci ugu dambeeyay aad u maleynaysid ama labadii asbuuci ugu dambeeyay arrinkaas inuu markaa faraha ka sii baxayo ama in markaa la siyaasadeeyay ama uu qabiilaysan yahay waa xaaladda markaa hadda dhex taalla reer Somaliland iyo beeshii ciise iyo beeshii gadab guursi hawshaas soo dhaliba markaa ay ka soo bilaabmatay waa xeer ciise arrinta isqabqabsigeeda muddo hadda waa uu soo socday shalay ugu dambeysay waxaa dhacday odayaal ka tirsan dhaqanka beesha ciise iyo niman guddiye oo xeerka ciise loo saaray deegaanka markaa caasho cabde maamulkii Somaliland ay ku qabteen taasoo ay u diideen markaa inay gudbaan oo magaalada ay galaan waana sawirka aynu markaa halka uga jeedno oo waliba beeshii lagu qabtay nimanka odayaasha dhaqanka beesha ciise ka soo jeeda iyo guddidii markaa xeer ciise ku shaqo lahayd labadiiba meesha ay fadhiyaan waliba dhamaantood ma waa qaar ka mid ah waxa markaa ciidankii Somaliland ay meesha ku qabteen arrinta waxa ka dambeeyay ama xariga ama nimanka odayaasha ay dhaqanka qabtay oo u diiday markaa inay magaalada galaan waa Maxamed Ciise oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka Salal oo dabcan in waa laga yaabaa inuu markaa beeshii Ciise ama ciddu doonaha ahaado balse waa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Salal laftigiisu xaaladiisu mid fudud maaha oo waa ka asnayd intii muddo wala isku haystay asbuucan hadda aynu soo dhaafnayna waxa aynu ka warqabnaa beesha Ciise ama shacabkoodii ama deegaamadoodii arrinta ka socotay oo wafdi walba markaa Somaliland ka yimaada weerar lagu qaaday ama shicibku ay markaa ka soo horjeedeen xaaladdu hadaba mid sahlan maaha waxa ay maraysaa in beeshii Ciise ama raxasan oo markaa afkoodii hadda ku hadlaya oo caaw cadeeyo in Somaliland ay markaa dagaal ku soo qaadayso ama 400 oo kiiloomitir dhul qiyaasiisa oo beeshii Ciise ay degan tahay in gudaha ay u soo galeen ciidamo Somaliland ka yimid oo ku sheegay waa niman jabhada oo raba inay dadka laayaan ama u yimid inay deegaankii qabsadaan waana tabtii laascaanood weerarka loogu qaaday oo Muuse Bixi uu weerarka ugu qaaday tabtii ayaa caawana socota ayuu dhahay balse kama yeelayno oo dagaal ayaanu ka xignaa waxa kale oo meesha amar inuu raaciyay in beesha dhulbaanta ay taageersan tahay nimankii Ciise iyo xeer Ciise oo ay ku garab taagan yihiin Ciise oo waliba u dhulbaanta dhahay magaalada Laascaanood iyo maamulkii waqooyi bari caasimadiisa hal la keeno xeer Ciise xagga xafladda loogu qabto waanu ku taageersanahay waana xeer u baahan Soomaali markaa inay ku dhaqanto waa meesha dhulbaanta ka taagan yahay waxa kale oo isaguna dhinacan ka soo galay oo taageersan waa nimankii ogaadeen oo iyaguna garab taagan beeshii Ciise dabcan ogaadeen iyo Ciisena cidimo kala dhex gasho oo waa laba nin oo isku dhimanaya dhanka kale Somaliland ciidan ayaa ay soo dirtay oo deegaankii Ciise ay soo gashay oo waatan markaa hawshu u eeg mid dagaal in uu meesha ka bilaabmo ay xaaladdu ekaanayso arrimahan ayaynu u gudbaynaa iyo xaaladda faraha ka baxday ama xumaatay iyo maamulkii waqooyi bari ama beeshii dhulbaanta iyo beeshii ogaadeen oo Ciise markaa u soo hiiliyay oo soo garab istaagay reer Somaliland oo markaa iswato oo gadab guursi iyo beeshii Isaaqa arrintan xagee ayuu ku socotaa maxaa isbedel imaan doona arrintan ma sahli doontaa markaa mid in uu dagaal ka yimaado ama fooda la isdaro iyadoo gurubaysi la iswato ma u ekaan doontaa الله أعلم إنتبه ووحصو رجلا وواحد إكرا أهل كان أو تفتران وح أيضا إني نقول جسنا إيه بديدو جدا بيسة أما حالد ما كان ماشي أي مرسو وبروفيسور أما راح حسن وحالد ماشي أي مرسو أما شركة اللي سوي أما ما كان ماشي بيسة أي قاتين إلا أوجارين إلا البانتو ما كان صوت تاجر وجرب تاجر إنه ما كان أما رأينا جوا رمو أي فرنا يحر عيسى وما كان ستة ساعات ومليست in looga soo horjeedo beeshii Ciise go'aankoodu uu yahay ama ay isku raaceen in odayaashii dhaqanka iyo ragooda siyaasiyiinta iyo shicibba ay markaa isku xiran yihiin arrinkiina ay uga daba fadhiyaan ama ay ku taageersan yihiin waa ugaaskooda guud ee beeshii Ciise iyo siyaasiyiintoodaba dabcan waxaana xaqiiqo oo meesha taala Ciise inuu markaa midaysan yahay oo hal mowqifna ay ku wada taagan yihiin ayaan dhawid waxa ay noogeen go'aamadii la soo saaray ama hawshii socotay markaa inay taagneed beesha Ciise in ay xitaa rabaanba inay markaa ka goostaan Somaliland oo intii Soomaaliya ay markaa dawlad ka dhismayso oo la isu imaanayo ay Djibouti markaa inta ka sii tirsanaadaan hadhowna markaa ay Soomaaliya ku soo laabtaan arrinkaas markaa suuragal ma yahay ma dhacaya kullay wax walba way dhici karaan balse inay adag tahay oo aysan hadda suuragelaynin dabcan Somaliland ayaa ay beesha Ciise ka tirsan tahay iyo gobolkii Salal taasina waa arrin aad u adag bay noqonaysaa meesha marka waxa taala isqabqabsigan tirada badan ee Somaliland laftigoodina ay ku kala jabsan yihiin dhanka siyaasadda ama qaabka loo wajihi lahaa beeshii Ciise iyo buugan xeer Ciise iyo arrinta la rabo markaa in meesha lagu qabto waxaa jira taar iyo xalay ama ilaa iyo maanta warar kale oo iyaguna markaa bari bulshada la wareejinayay
oo ah ugaaskii guud ee beeshii ciise in jabuuti dhexdeeda markaa loogu afduubtay oo la sheegay in ay canfari afduubatay oo la la'yahay taasina ugu dambeyntii waa la caddeeyey oo waa been waxayna ahayd mid propaganda oo markaa beeshii ciise ay ku eedeynaysay beesha gadabuursi in ay ka dambeysay oo arrinka ay faafinaysay haddaba xaaladan oo gebi ahaanba u eg markaa mid cirkaa hadda isku sharartay ama meel xun gaartay ama markaa si toosa la iskaga soo jeedo aan waxna la isku ogolayn ama in markaa meel wax la wada dhigto ayaan rabnaa inaynu soo qaadano waa amare xasan oo markaa arrinkan ka hadlaya iyo abdididii ugu dambeeyey ugaaskeenii jabuuti jooga roballe mustafe iyo gadeeni wixii dee danteena aan bay karinayaan laba cisho iminka silent baa lagu jiraa shalay iyo maantaba dowladda jabuuti madaxweynaheeda ee soo dhaweysay ee dareenkayga ka jawaabtana waan mahadcelinaa madaxweynahooga iyo dowladda aad iyo aad dowladda jabuuti iyo madaxweynahooda intaba waa ciise amare xasan waa yacni adile dubo adile daangeyso ayaa uu hawsha u wadaa oo dee wuxuuba waa isla beeshii ciise isu mahadcelinaya balse arrinka muhiimka ah ee ugaaskii guud ee beeshii ciise oo ilaa iyo habeenkii xalay ahaa ama teer iyo shalayba markaa baraha bulshada ilaa iyo maanta xaaladdu haba badnaato la wareejinayay ama warar ah in markaa la afduubtay dee waa tan uu hadda markaa amare xasan hadda ka hadlayo oo inoo caddeeyey in markaa ugaaskii guud ee beeshii ciise wararka la soo geliyay ee been abuurka ah inay markaa canfari afduubatay dee gebi ahaanba hadda waa ay noo caddahay oo waa been balse wuxuu inoo sheegay labadii beri ee ugu dambeysay guddigii iyo ugaaskii iyo beeshii ciise jabuuti ahaadaan ama meel walba ahaadaan oo markaa hadda isugu yimid jabuuti inay aamusnaayeen ama ay xaaladoodu ahayd mid joogi degana oo wax waro cusub uusan kasoo bixin balse taladii ay kalsooni u qabaan go-aanadan ay kasoo waxaan kaloo mahadcelinayaa beesha ogaadeen daarood absame iyo dhulbahante oo iyagu codsaday in xeerkaba la keena laascaano waan keenayna waana maasanti qof kastoo nala dareemaha yani waxay tiraa soomaalidu qosol hilibaad buu leeyahay qof kasta oo markii argagixisadii dhulka kusoo duushay adkaatay xaaladdan way adkaatay oo way ay fogaatay hawshii waxay u muuqataa in beeshii dhulbahante iyo nimankii ogaadeen markaa ay dhexda kaba soo galeen haddana waxaan leeyahay amare xasan waa u tuba raacaya oo reer somaliland nimanka isaaq iyo nimanka gadabuursi ee wada socda oo ciisana markaa uu dhinac yahay ayaa uu rabaa fursadan inuu soo riixo oo uu nimanka markaa kula challenge gareeyo balse xaaladdu inay dhab tahay ayaa muuqata oo beeshii dhulbahante ama maamulkii waqooyi bari waxa ay taagan yihiin xeer ciise waa in la keenaa magaalada laascaanood oo annaka ayaa u baahan waa dhaqan soomaaliyeed waa xeer soomaaliyeed waanu ku dhaqmaynaa oo aan u baahannahay intaas kaliya marka kuma ekaan beeshii ogaadeen ayaa iyaguna meeshii soo galay cagti dheerad waa ay soo geliyeen waxay taageen xeer ciise ilaa iyo etoobiya kililka shanaad ilaa iyo soomaaliya ilaa iyo kenya ayaaba looga dhaqmayaa oo waa xeer soomaali ay leedahay oo markaa loo baahan yahay amare marka waxa uu hadda taagan yahay dee dabcan inuu karbaasho ayaa u rabaa reer somaliland oo uu taagan yahay waxaan u mahad celinayaa beeshii dhulbahante iyo beeshii ogaadeen nimanka daarood ismaaciil ee aanu walaalaha nahay oo marna dee ciise nimanka harti uu aftika u yahay tubaracna way noqonaysaa karbaashna way noqonaysaa marba haddii aan markaa nimankaa daarood haysto dee cid kaloo aanu u baahannahay haddii aanu ciise nahay ma jirto ayaa ay macnuhu noqonaysaa yani xaaladii xaalad fudud maaha inay adkaanayso ama la isku adkaynayo ayaa meesha kadabuurtii daalla ka soo dhaadhacday ay nagu soo duushay dareenkiisa muujiyey waan mahad celinayna waxaan u mahad celinayaa doctor gaboose ninka la dhaho runta ka hadla gaboosow aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa ninkii labaadaan u mahad celinaa tahay beeshaysa waxaa kaa horreeyey nin qaasim la ydhaahdo oo inuu garxayti sabaaban malaynaya aad ayuu mahadsan yahay amare xasan doctor gaboose oo ah nin reer somaliland oo beeshiisa kasoo jeeda dabcan waa u mahad celiyey iyo nin kaloo weliba uu markaa magaciisa sheegay oo uu dhahay isagun waa nin kasoo jeeda beesha isaaq balse arrinkan weli wuu siyaasadaysay ama qabiil ayaa la isku riixayaa balse muhiimaddu waxay tahay xeer ciise dee ama isaaq ahow ama daarood ahow ama hawiye ahow ama dir ahow ama ciisaha ahow ama raxan weyn ahow soomaali oo dhan ba xeer ciise qabiilkii la yimaada oo dee unescona marka ay u aqoonsatay xeer ciise mid muddo aad u tar badan baa shaqaynayay inuu yahay dee waa wax lagu faano wax ciise kaliya markaa anfacayo ama uu ku faanayo ma ahan waa mid soomaali oo dhan markaa ah inay broad ku noqoto maadaama uu dee ciise waa niman soomaaliyeed dee soomaali ciise guushii uu gaaray ama wixii markaa iyaga loo aqoonsaday oo wanaaga dee soomaalida markaa waa ay la qaybsanaysaa oo mid uu ciise keligii gooni u yeelanayo ma aha dadkuna waxaa wanaagsan taa horta inay ogaadaan waxaa kaloo rabaa kan inaan kala hadlo ninka barasoobka magaalada sayla anu magaca baan kuu bixiyey kun ciil baan kuu bixiyey kun
1 milyan ciil baan kuu bixiyey meesha markii lagu keenay dad baan seexan ilaa maanta cabaadahay kun ciil baan ku odhanaya guushaadeed inaad ku joogtaan jecelahay waxaan jecelahay inaad guushaada xajisato waxaan jecelahay inaanad noqon ina koore iyo ina cambaashe iyo inaanad noqon dadka way ka dhasheen ambarre xasan xitaa dhankan waa soo galay oo nimankii horgallada ahaa ee kasoo jeeda beesha dhulbahante mahad cambaashe iyo ina koore iyo nimankii laftigooda waa u karbaasha waa u tubarraaca ku soco kooraba reer buu ka dhashay innagana mid baa la sheegaya xidiga badan oo sidiisii oo kala waa hobka u taagay kaa ciise la odhan jiro kala inaad noqotaan baan diidaya waxaan jeclaan lahaa kun ciilo inaanad u jilcin jabhadda argagixisada ee soomaali diidka ah cabdiqani halkii uu maray baan rajeynayaa inaad iskaga dareertaan aana lagu bahdilin odagan habara wala kolba laynagu soo tuuraya dhagaxani laynagu soo tuuraya inuuna ku bahdilin maamulkaas inaanad u bahdilmin waa yacni waa bara saabka gobolka salal haddaay waxaynu ogeyn nimankii wafdiga ahaa ee odayaasha dhaqanka beesha ciise kasoo jeeday iyo guddigii markaa xeer ciise kuwo ka mid a maalintii shalay ninka celiyey ee u diiday inay magaalada galaan ama deegaanka caasho caddo wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska ee deegaanka marka jooga oo isagu nin maxamed ciise loogu wacaa dee dabcan kaas ayaa marka tagay waaba horgalmiya balse ninkan hadda bara saabka ah dee waxa uu tagay kugu maalnay oo horgalnimo kaama sugayno iyo in marka aad noqotid nimankii beeshii dhulbaanta kasoo jeeday ina cambaashe iyo ina koore iyo dee horgal beeshii ciise horgalkii koowaad ee kasoo jeeda maahan dabcan beesha ciise horgallo badan waa ay leeyihiin oo dee ayaga dadkoodii markaa baabi'inaya balse ninkan hadda waa nin uu taagan yahay hawl fiican ayaa uu wataa arrinku markaa inuu qasan yahay xaaladani ay tahay mid aad u malaynaysa in lagu kala dhaqaaqayo ama lagu kala tegayo dee dabcan nimanyaha waa ay noo muuqataa waxaan rag u qaadan iska ilaaliya ama raynay ku siiyaan iskaga bax hadday noqoto in lagu bahdilo oo dibadda lagaa daawado iyo ku bahdilay cabdiqani wuxuu diiday wixii aad garanayso dhulkeenna markii la xarashay dhulkaas aad wuxuu diiday xeefta ayee musabiixi isagoo 2 nin oo samaroona wata oo ku cadaadinaya isaga ayuu soo saxeexay dhulkeenna 2 ninna way ag joogana samaroona annagu nagu xumaynayay marka iyagu way ogolaayeen laakiin nagumaynaan ogolayn samaroon ayagu waa jirtay wuxuuda waa qarsan waay raganimuu sheegtay okay tan marka hadda waxay caddaynaysaa dowladdii somaliland waxaa ka go-an xeer ciise gebi ahaanba inaysan markaa ogolaan sida hadda hadalka aynu ka dareemayno beeshii ciisena dee iyagu warkoodu waa cad yahay oo meel ayaa ay taagan yihiin fariintu hadda marka waxay ku socotaa waa nimankii beeshii ciise ee dowladdii somaliland ka tirsanaa oo uu leeyahay maalintii muuse bixi uu wax saxeexayay ama uu badda iyo dhulka rabay inuu saxeexo dee sidii nimankii gudaguursi ay ogolaadeen in dhulkooda la gato idinku ha noqonina idinku markaa ha ka yeelina balse sida ninka cabdiqani uu waagii xiniyihiisa u fuulay dee raggan meeshaa joogaa haddana xiliyahooda ha fulaan oo dhulkooda iyo deegaankooda iyo dhaqankooda ama xeerkooda dee midna yaysan ogolaan in markaa la diido oo lagu tunto waa yahay argagixisadii maleeshiyaadkii halkaas soo maray waxay keeneen ciidan dabtii laascaano ka dhacday baa taagan iminka laascaano 120 kilomitir bay galeen iminka maleeshiyaadkii maxaa la odhan jiray bb qoladii habar jecla iyo maleeshiyaadkii berigii u sooyay muuse biixi ayaa la keenay dhulkeenna waa 400 kilomitir waxay soo galeen dhulkeenna marka 400 kilomitir ninka soo geliyay ka dhaawacma hadhow toole xataa inay wadada mari karin waa talaxumo tii waxay noqonaysaa laascaano caana kugu daatay laakiin waxaa la sheegay maleeshiyaadkii dhulkeenna la keenay waa xagaag yacni warkuu cad yahay oo caawade waaba tii ugu dambaysayba waa beeshii ciise oo taagan tabtii markaa shalay duulaanka loogu qaaday beeshii dhulbahante ama laascaano loogu qaaday ayaa somalilandna ay maanta usoo weerartay beeshii ciise oo deegaankii beeshii ciise ayaa ciidamo la soo geliyey sidii laascaanood waagii markaa loogu weeraray marka arrintood waxay noqonaysaa ciise dee diyaar ayaa ugu yahay sidii laascaanood markaa loo weeraray haddii iyagana weer loogu soo qaado maleeshiyaadka waa jabhad dowladda ciidan bay leedahay laakiin iyagu waaniga arkay waa maleeshiya waxa la yidhaahdo waa iska dad iska socdo oo socdo da iska primitive marka maleeshiyaadka dhulkeenna in la keenayna waa la sheegaya markaas kuwaasna kolley innaga ayaa la xisaabtamayna waa hagaag wax dhibaatayii ma jirto iminkana waxaan sugaynaa jawaabta silent baa jirta la karinayda wixii ka soo baxa ayaanu eegaynaa
jabhadda argagixisadana waxaan rajeynaya in basbaaseeyo basbaas ama markaas waxaan noo sheegada Somaliland iyo ciidankooda ama jabhad ayaa u dhahay oo dowladnimadiiba markaa uma ogolo waa u diidan yahay haddii ay yimaadaan dee waan basbaasaynayna dabada basbaas ha laga mariyo ayaa aynu maqli jirnay ama hadda wuxuu taagay waanu basbaasaynaynaa oo tilaas caanood markaa uga dhacday mid lamida ayaa ku dhici doonta oo dhulkaygii ayay 400 kilomitir usoo galeen iyagoo ciidankoodii jabhadda ahaa wata oo dagaal bay diyaar u yihiin ama sidii markaa dhulbahante iyo laascaanood weerarka loogu qaaday qaabkii ay u socdaan kamana yeelayno ayaa u taagay marka intaas waxaa usii dheerba inuu markaa hadda leeyahay dhulbahantaana soo taageeray oona garab taagan oo xeer ciise taageersan iyo beeshii ogaadeen marka dee isaaq iyo gadaguursi ama ha isla socdaan ama ha iska daayaane war ayaanu iska keenaynaa nimayo xaaladan xaalad sahlan uma eka ilaahay ha sahlan baynu dhihi karnaa meesha hadda waxaa iga cad odayaashii beeshii ciise iyo dhaqankoodii iyo ugaaskoodii guud oo hadda Jabuuti jooga iyaguna shir hoosaad ama shir qarsoon ayaa u socda iyo go'aamada markaa ay soo bixin doonaan waxa lagu dhawaaqaya iyo marka lagu dhawaaqaya iyo arrinkaasi waxa uu noqon doono gebi ahaanba meeshaas xaaladaasi xaalad sahlan maaha in uu dagaal sokeeyo meesha ka bilaabmo waa mid sahli karta in siyaasad lagu dhameeyo waa ay adag tahay oo isqabsiga ama heerka ay maanta gaartay ama meesha ay taagantahay ayaa aynu u jeednaa ama shicibkii markaa beeshii ciise kasoo jeeday dee dagaalka iyo dhagax tuurka iyo heerka ay ka taagnay marka marnaba horta wax sahlan maahan balse alla sida khayr laa uga dhigo xeer ciise in markaa dee arrinkaas uu heerkaa gaaro mid la filaayo maahan balse hadda waa aynu u jeednaa filigana kuma daahayno halkaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo inta ay soo maan doona filigan filigo lamida waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu